munaasabadani ayaa ahayd sabootinta xafladda sanad dugsiyeedka dhammaaday iyo soo dhoweynta sanad dugsiyeedka cusub ee 2025-2026 waxaana la abaalmariyay ardaydii kaalmaha hore ka soo galay dugsiyada Ileys Camuud ee magaalada Boorama. Isla xarunta ayaana loogu qabtay xafladani waxa kala soo qayb galay madaxda wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal, waxgarad waalidiin aqoon-yahan, maamulayaasha dugsiyada qaarkood iyo marti sharaf kale. Barbilow waxa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiyada Ileys Camuud ee magaalada Boorama mudane Cabdirashaaq Axmed Muuse Oday, xubno ka mid ah macallimiinta iyo ardayda qaarkood. qaybtan waxaan aasnay 2017 baan aasnay maanta waqti yar oo dugsi sare ilaa dugsi sare aan isku xidhnay dadaal dheer iyo juhud dheer waan soo muujinay waan soo dadaalay waalidiinta nala soo dadaalay ee na soo maalgelinayay ee arday noo keenay ee nagu aaminay kuwaas horta maanta kuwa siinaa waxaan leeyahay waalid 100% naasinti ardayda sidoo kale iyaguna waxay dadaal bay muujiyaan haddaan yar dego waxbarashada horta waxbarashadu waxay u baahan tahay dadaal bay u baahan tahay juhud bay u baahan tahay oo waxbarashada haddii adduunyo noqoto iyo haddii aakhiro noqotoba labaduba dadaal loo baahan yahay ardayba iskuulka markuu joogo dadaalaya galabtii markuu sidoo uu dadaalaya habeenkii markuu xaafadda tago uu dadaalaya ardayda iskuulka hadduu iska dhaxaysiyay galabtii waxba tagayo habeenkii wax ma akhrisayo ardayga iyo ardayga shaqaystay sanad dhan dadaalayay masuu kaalmo galayaan isu kaalmo maayaan haddii la ordo ardayda kala la yaaco ardayna u dheereeyay qofna u dheereeyay qofna u gaabin marka ay ardaygii dadaal muujiyayna dadaalkiisa waxa leenahay halka siibo ka ardayga gaabiyada waxa leenahay adna dadaalka ku daro ardayda walaalahaaya gaad oo meesha hiigsanay gaad meesha hiigsanay waa meel sare meesha sare marka la joogo way fududahay laakiin marka la gaarayo gaaritaanku waa adag xilliyada waxay khasarayaan wiilada ka haraysta wixii dugsi sare ka hooseeyana mobil ha u dhiibina ilmahaasi mobil ha u dhiibina ilmahaasi wuu luminaya mobilku wuxuu noqday aaladaas waxay noqotay aaladda ugu waxtarka badan leh uguna khasaaraha badan noqotay xaga maanta oo sanad dugsiyeedka waxaa soo xidhmaya 2024-2025 sanad dhan oo kaamila ayay ardayda soo dadaalayeen ardaydii soo dadaalaysay maanta waxaa leeyahay waa mahadsantii ardayda kalena waxaa leeyahay inuu soo dadaala walba waalidku waa inuu micnihi ku xidhnaadaa dugsiga iyagoo dardaaranka aan siinaya waa dardaaranka ku xidhnaanshaha dugsiga waalidku inay ku xidhnaadaan macallimiinta iyo maamulkana oo anagu laftigooda ka mid ahay waxaan micnihi isku dardaaraynaa in aan shaqada aan qabanayno aan dardargelinno qof Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu ka cabsado oo uu yeesho qof wanaagsan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka cabsaday sida daraadeed wasaa'isha iyo asbaabta keenta inuu Allah subxaanahu wa ta'aala qofku ka cabsado waxa kamid ah attaqwa Allah ka cabsi baa kamid ah sida daraadeed ayuu Allah subxaanahu wa ta'aala aw in amraya Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhamaantaan ka cabsano soo xidhitaanka sanadkii hore ee noo dhameystirmay ayaan ku soo xidhaynaa maadaama uu noo bilaabmayo sanadkii cusbaa xafladani markaa waa xaflada ku soo xidhayno sanadkii hore aan isku guddoonsiinayno imtixaanaadkii iyo ardayda soo shaqaysteen sanadkii inaga dhammaaday ee 2024 iyo 2025 alxamdulillah macallimiinta inoo joogta maanta dugsiga hoose dugsiga dhexe iyo dugsiga saraba runtii waa macallimiin khibrad badan leh waa macallimiin khibrad ballaaran leh aqoon leh waayo aragnimo leh waxtar weyn leh diinta uga tagay dadkiisow kii buura dahabiyo daaraha adduunyada aakhira ka doortow dadka kii hanuunshe qalbiga damiirkiyo dad intuu ku nool yahay dunyada nuurkii ay hooyo dihato cisho kuma diidina baa ku doorto xuma ka dahiree magacaaga daabka tukashada salaadiyo shahaadada ku darayo dirigaaga weliga darayo maaye waalidu ilmahaagu adu gacantaada ku jira inta ka horeysa 15 u tarbiyade inuu xamili karo oo tartami karo oo qaban karo duruufaha kala duwan ee nolosha. intaa kadibna hadalka waxa ka daba qaatay mas'uuliyiintii kala duwanaa ee kala soo qayb galay iyagoona halkaasi uga duceeyay maamulka macallimiinta ardayda iyo waalidiinta. waxaan u hambalyeeynayaa ardayda maanta ka soo qayb gashay sanad dugsiyeedka ee maanta qaadanaysa imtixaanka mataqaanaa jaasadii nin walba wuxuu helay waxaan rajaynayaa inaad dhammaantiin noqotaan kuwa wada guulaysta waxaan jeclahay guul baan la jeclahay dugsiga waxaan ku kalsoonahay dugsiyada Ileys Camuud nimanka jooga oo hawlkar ah
nimanka jooga oo aan ogahay halkay ka soo bilaabeen anigoo og maskaxdooda iyo waxa ku duugan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa macallimiintooduna waa baalashay ay ku duulayeen guulaysatay iyagana hambalyaan leeyahay kuwa ardayda aan soo gaadhin kaalmaha iyagana waxaan rajaynayaa dadaal inay sanadka dambe haddii la yidhaahdo ay la tartamaan halkaa kuwa jaayisadaha qaadanaya ee abaalmarinta la siinayo iyaguna ay la tartamaan oo halkaa soo gaadhaan dugsiga Ilays Camuud waa dugsi tayadiisu aad u sarreyso annagu waan kormeernaa wasaarad ahaan xaaladooda waa la soconaa waa iskuul wanaagsan macallimiin wanaagsan baa ka shaqaysa maamul wanaagsan waxaan idin rajaynayaa insha allahu tacaala guul baan idin rajaynayaa waxaan u hambalyaynayaa maamulka iyo macallimiinta sida qiimaha iyo quruxda badan loo soo diyaariyay xafladdan waxaan sidoo kale mar labaad u hambalyaynayaa waalidka sida fiican u soo kalahay xalayna diyaar u ahaa si ay xafladdan quruxda badan leh abaalmarinta leh ay ilmahooga iyo iyaguba si qurux badan iyagoo wada socdo uga soo qayb galaan waxaan waalidka leeyahay waxaad u garateen ilmihiinna goob wax laga barto goobtii ugu wanaagsanayd iskuul wax laga barto oo tayo lagu tilmaami karo iskuulkii ugu tayada wacnaa iskuul ka mid ah iskuullada gobolka ugu tayada wanaagsan leh xagga ardayda waa lagu haleeyay hooyo waa lagula hadlaynay hooyo habeenkii ma argala hooyo daraartii ma iibsado hooyo adna aadkaa u tagin hooyo anna halista ay geyn hooyo waa hodan dhulkeegii hooyo waa lama huraanee hooyo way hagaagi doontaa hooyo habsi kuma haleelee hooyo daa'ima wallow deeqla wallow ka dunida uumow haddana dadajinayow maxaan loo dareemayn dayartaa dhammaatee damqashadu diiranaysa saaka halka waxaynu u fadhinaa carruurtaasaynu uga farxin lahayn oo farxaddoodii iyo xafladdoodii aan la qaadanayno dhammaan waxaan leenahay hambalyo macallimiintii wax u soo dhigayey oo ka mid ahaana waxaan leenahay jazaakum allahu khayr ubaxa aad maanta soo saaraysaan waxaan filaynaa beritole insha allah inay waddanka wax u qaban doonaan waalidkana anfici doonaan waxaan halkan ka hambalyaynayaa ardayda halkan aynu u fadhino xafladooda ee sanad dugsiyeedkii 2024-2025 ardayda ku guulaysatay kaalmaha koowaad labaad saddexaad iyo akhlaaqda sida ay caadadu ahaan jirtay marka ardayda waxaan marka hore leeyahay iyaga hambalyo ugu dambeyntii ardaydii kaalmaha hore soo galay ayaa halkaasi lagu guddoonsiiyey abaalmarinooyinkii loogu talagalay isdiiwaangelintu waxay ka socotaa hadda dugsiyada Ilays Camuud ee galbeedka magaalada Boorama warbaahinta Cishqi TV Boorama.